بسم الله الرحمن الرحيم مدن مدحوينه xubnaha golaha wasiirada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tala soo jeedinta wasaaradda waxbarashadu ay soo jeedinayso iyadoo ka tusaale qaadanaysa xaalado mar hore ina soo maray oo uu ka mid ahaa xilligii covid-19ku waxay wasaaraddu markii ay dhinac walba ka eegtay ay soo jeedinaysaa in 40,642 arday oo ku nool deegaanadii ay saameeyeen dagaaladu iyo meelaha ku dhow in lagu qiimeeyo imtixaanadoodii sanadkii hore oo ay hayso wasaaradda waxbarashadu oo weel xogeedka wasaaradda ku jira si ardaydaas ay ugu suura gasho in ay waxbarashadooda sii wataan iyo in ardayda fasalka 8aad ee wax ka baran jirtay area oo dhan 2,233 iyo ardayda dugsiga sare form 4 ka baxaysay oo dhan 1,045 iyagana ay wasaaradda iyo xukuumadda ka shaqeeyeen sidii shahaadooyinkooda loogu fududeyn lahaa marka imtixaankoodii hore lagu qiimeeyo saasay wasaaraddu codsanaysaa mudane madaxweyne